salaamullaahi calaykum akhyaarta nala socotay dalkiinba meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa 25-ka maarso sanadka 2026 timintan faaqidaada wararka dagaalka ee gobolka bariga dhaxana qodobadaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah dowladda Iiraan ayaa maanta soo saartay mid ka mid ah wararkii ugu xajmiga iyo culayska badnaa inta lagu guda jiray dagaalkii gobolka bariga dhexe maxaa ka jira in gantaal lala helay oo lagu weeraray markabka Abraham Lincoln ee diyaaradaha xambaara ee dowladda Mareykanku ay leeyihiin warbixin Iiraan ay arrintaasi uga hadlayso oo soo baxday ayaan idinla wadaagayaa iyo war ay ka soo saareen taliska dhexe ee Mareykanka xarunta hagidda dagaalka ee ciidamada militariga dowladda Iiraan ee Khatamul Anbiya ayaa maanta digniintii ugu cusleed u jeedisay Mareykanka waxaana ay ku tilmaameen in calankoodii bariga dhexe uu dhacay dowladda Iiraan ay noqonayso cidda ugu dambeyntii wax jaangoyn doonta marka la fiiriyo dagaaladan wasaaradda amuraha dibadda ee waddanka Ruushkana waxay ku tilmaameen in gobolka bariga dhexe aysan nabad ka imaanayn ilaa inta saldhigyada Mareykanku ay halkaasi ku yaalaan tani ma loo macnayn karaa in dowladda Moscow ee dagaalkan ay ugu jirto si ka duwan sida ay Iiraan dagaalada hadda ugu jirto mase waxaa la gaaray xilligii ay Moscow ka aarsan lahayd Washington oo ay ku dhig bixin lahayd dagaalka ka soconaya gobolka bariga dhexe maadaama reer galbeedka uu Mareykanku horfiiq u yahay ay si weyn u taageereen dowladda Ukraine halkaas oo dhibaatooyin badan ay ka soo gaareen waddanka Ruushka mid ka mid ah askarta saraakiisha ah ee Israa'iil ayaa maanta la dhaawacay kadib dagaal gacan ka hadal ah oo dhexmaray ciidamada xisbiga ee Lebanon dagaal ka dhacay koonfurta waddankaasi waxaana la soo warinayaa in maanta sidoo kale gantaala asqada ay uga dhigaan xisbigu qaybo ka mid ah dhulka la haysta ee Falastiiniyiinta oo Israa'iil ay ku sugan yihiin garoonkii diyaaradaha Israa'iil ee Ben Gurion oo ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee Tel Avivna waxaa lagu soo waramayaa in howlgab laga dhigay uu shaqayn laayahay dowladda Mareykankuna waxa ay soo gudbisay 5 shardi oo muhiim ay u aragto wada hadalladu inay ku socon karaan si dagaalka gobolka bariga dhexe loo soo gabagabeeyo qodobadaasi dhacdooyinkii ugu dambeeyay colaadda gobolka ka aloosan ayaan rabaa khiyaarta ay nala socotay daqiiqadahan idinla joogo inaan faaqido ku soo biira YouTube oo subscribe saara oo mahadsantiin ma ogtahay in dhakhtar Shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar aan ku horeeyay dowladda Mareykanka ayaa ku wareejisay waddanka Turkiga 5 qodob oo ay doonayso dhinaca Iiraan inay fuliyaan si wada hadal wax ku ool looga galo dagaalka ka aloosan gobolka bariga dhexe arrintan ayaa hore Iiraan ugu tilmaantay inay tahay wax aan la aqbali karin laakiin Washington waxay doonaysaa in ay mar kale ku cadaadiso waddanka Ruushka aan ilaahdee waddanka Iiraan arrintan dowladda Turkiga oo hogaamiye Rajab Tayyip Erdogan ayaa markan raadinaysa si dagaalka loo soo gabagabeeyo uusan ugu sii faafin qaybo ka mid ah gobolka bariga dhexe warar laga helayo ila Turkiga ayaa sheegaya in dadaalo diblomaasiyadeed oo xoogan ay ka socdaan gobolka si loo dejiyo xiisadda ka aloosan gobolka bariga dhexe iyadoo dowladda Turkigu ay door dhexdhexaadina ka qaadanayso gudbinta fariimaha u dhaxeeya Tehran iyo Washington ila wareedyo ayaa tilmaamaya in madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo wasiirkiisa amuraha dibadda Hakan Fidan ay xiriir la sameeyeen ku dhawaad 10 dal iyagoo isku dayaya in la kordhiyo muddo 48 saacadood ah oo Mareykanku siiyay Iiraan si ay u furaan marinbiyoodka Hormuz isla markaana xal loogu helo wada hadal iyo fursad loo abuuray channelka diblomaasiyadda sida ay sheegayaan warbixinta Mareykanku waxa uu Turkiga iyo Pakistan u gudbiyay shuruudo ka kooban 5 qodob oo ay doonayaan in wada hadalka lagu bilaabo taas oo ujeedadoodu ay tahay in laga rabo dhinaca fulinta dowladda Iiraan 5 qodob ayaa waxay kala yihiin in la furo marinka Hormuz isla markaana la soo celiyo dhaqdhaqaaqa maraakiibta qodobka labaad waxa uu yahay in si buuxda loo joojiyo barnaamijka nuclearka dowladda Iiraan Tehran ay ku dhawaaqdo inay ka tanaasushay guud ahaanba arrimaha nuclearka ah ay muddada dheer ku guda jireen iyo in dhammaan uraniumka la hodmiyay lagu daro
laga saaro guud ahaanba wadanka Turkiga wadanka Iran. qodobkan waxaa hore u soo jeediyay dowladda Ruushka saate Trump ayay arrintan u cuntami weysay iyadoo dowladda Moscow ay hore u sheegtay in la gaaray in dowladda Ruushku ay diyaar u tahay uraniumkaasi inay la wareegaan in gantaalada Iran lagu koobo kuwa difaaca oo kaliya inta ka soo hartay ee gantaalaha weerarkaana la burburiyo ama laga saaro gudaha wadanka Iran iyo in Iran ay joojiso taageerada kooxaha wax iska caabinta saddexagalka ee gobolka bariga dhexe ka howlgala. ila wareedyadu waxay xusayaan in shuruudahan ay yihiin kuwii hore dowladda Mareykanku ay u soo jeediyeen hasaate ay diiday dowladda Iran. hadda mar kale Mareykanku waxay u isticmaalayaan mid ka mid ah qodobada cadaadiska. dhinaca kale Iran weli kama aysan jawaabin fariintan loo diray waxaana xaaladda lagu tilmaamay in ay tahay mid degan balse si fudud isu bedeli karaysa waqti kasta marka la eego janaalka diblomaasiyadda iyo wada hadallada dhinacyadu ay yeelanayaan. Turkiga ayaa sidoo kale wada xiriiro uu la sameynaya dhinacyo kala duwan oo caalamka si dagaalkan soconaya xal loogu helo oo loo soo gabagabeeyo muddada dheer ee dagaalkan uu ka taagan yahay gobolka bariga dhexe. 26 maalin ayuu soconayaa dagaalkan waxaana dowladda Iran ay isticmaalaysaa mid ka mid ah gantaalaheeda ugu halista badan ee clusterka kuwaasi oo saameyn ku yeelanaya qaar ka mid ah wadamada gobolka. marka laga yimaado nidaamka Israel ee dagaalada ay kula jiraan iyo dowladda Mareykanku dhinacyada ay sida weyn u garaaceen waxaa ka mid ah halka loo yaqaan Imaaraadka oo noqotay wadanka ugu xooga badan oo waliba si ka duwan nidaamka Israel loo garaacay. khubarada qaar waxay ku tilmaamayaan tan inay tahay in Mareykanka uu maalgelin xoog leh ku sameeyay dhinaca Imaaraadka maadaama shirkadaha sameeya tiknoolajiyada AI-da ay halkaasi ku bateen isla markaana ay muujinayaan in gantaal kasta oo lagu garaaco wadanka isutaga Imaaraadka Carabta uu noqonaya dhabar jab soo gaaray dowladda Mareykanka sida qayb ka mid ah khubarada ganacsiga iyo dhaqaaluhu ay hadalkan u dhigayaan. gantaalaha dowladda Iran maanta waxa ay howlgab ka dhigeen garoonka diyaaradaha Ben Gurion ee ku yaala magaalada Tel Aviv kana mid ah ilaha dhaqaalaha ee nidaamka Israel. dhulka hore looga qaatay Falastiiniyiinta ayaa markan noqonaya barta loolanka iyo waliba siraacaadka ka taagan gobolka bariga dhexe. khubaradu waxay tilmaamayaan in gantaalaha dowladda Iran maanta laga shaqeyn waayay oo diyaaradihii garoonkaasi laga weeciyay loona gudbiyay bar ka duwan garoonkan oo noqday bartilmaameed isla markaana nidaamyada difaaca hawada Israel ay shaqeyn waayeen inay ka hortagaan gantaalahan. wararka ka imaanaya isla nidaamka Israel waxay tilmaamayaan in seerida digniinta laga maqlay meelo kala duwan oo ka mid ah gobolka bariga dhexe gaar ahaan dhulka Israel ay gacanta ku hayso oo ay ka mid tahay magaalada Eilat sida horumar kale loo dhisay looguna talagalay in lagu dalxiiso oo ay dadku halkaasi ku tamashleeyaan. seerida digniinta markii uu dhacay kadib waxaa magaalada laga maqlay qaraxyo waaweyn iyadoo qaybo ka mid ah gantaalaha la soo tuuray ay ka farabaxsadeen nidaamyada difaaca Israa'iiliyiintu ay halkaasi dhigeen sida ay khubaradu tilmaameen. wadanka Urdun magaalada Eilat u muuqatay ee la yiraahdo Aqaba oo iyana ah magaalo boqortooyada Urdun ay u dhisatay in ay ku talxiisaan kuna tamashleeyaan ayaa iyana laga maqlay qalabka digniinta oo mar kaliya isqabsaday waxaana cabsidu ay ahayd inay soo gaaraan dhibaatooyinka weerarada iyo dagaalada halkaasi ka soconaya. xilli Mareykanka uu gobolka bariga dhexe doonaya inuu ku soo daabulo ciidamo hor leh oo ka mid ah Delta Force si ay uga howlgalaan marinka Hormuz iyo xarumaha nuclear-ka ah ee dowladda Iran. haddana wadanka Ruushka ayaa ku tilmaamaya in nabadda gobolka bariga dhexe laga gaaro aysan suuragal ahayn maadaama ciidamada Mareykanku ay halkaasi ku sugan yihiin. warka ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda Ruushka waxaa lagu yiri waxaa soconaya nabad darro xoog leh ilaa inta ciidamada Mareykanku ay ku sugan yihiin gobolkaasi. sidoo kale Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu aaminsan yahay in marinbiyoodka Hormuz si degdeg ah loo furi doono ciidamadaasina ay ka howlgali doonaan sida ay u sheegeen warbaahinta.
ciidamada dowladda jamhuuriyadda islaamiga Iiraan maanta waxay ku dhawaaqeen in la weeraray markabka diyaaradaha xambaara ee USS Abraham Lincoln oo ku sugnaa xeebaha waddanka Cumaan. wararku waxay qeexayaan in gantaal cruise lagu weeraray markabkaasi sida uu sheegay taliyaha badda ee ciidamada dowladda Iiraan. ciidamada Iiraan ayaa ku dhawaaqay inay beegsadeen markabka diyaaradaha xambaara ee Mareykanka ee Abraham Lincoln iyagoo adeegsanaya gantaal nooca cruise-ka sida lagu sheegay bayaan rasmi ah oo ka soo baxay militariga jamhuuriyaddu. wakaaladda wararka ee Faris oo xiganaysa bayaanka ayaa sheegtay in gantaalka laga tuuray xeebaha Iiraan loona jiheeyo badda si ay u gaaraan markabkan. sidoo kalena waxaa la sheegay ciidamada Mareykanku in ay ciidamada Iiraan weeyaan inay baahiyeen muuqaal muujinaya weerar uu markabkaasi la kulmay. hadal hore oo la sii daayay ayaa muujinaya in saraakiisha sare ee baddu ay xaqiijiyeen in markabkaasi ay waxyeello xooggan soo gaarsiiyeen sida ay hadalka u dhigeen. lama sheegin taariikhda goorta iyo goobta markabka lagu weeraray ama la weerarayba. hase ahaatee dowladda Mareykanka ayaa taliska dhexe ee militarigu war ay soo saareen waxay ku tilmaameen in hadalka ka soo baxay dowladda Iiraan uu yahay mid aan sal iyo raad toona lahayn. warar hore oo Mareykanka ayaa tilmaamaya in markabka uu ku sugnaa badda Khaliijka Cadan xilligaasi oo ay xiisadu aad u sii kordhaysay. dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Israa'iil waxa uu iminka noqonayaa mid ka xoog badan sidii hore iyadoo janaalada diblomaasiyaddana la isku dayayo in aad loo howlgeliyo. taliska militariga ah ee dowladda Iiraan gaar ahaan barta howlgelinta dagaalka ee Khatamul Anbiya ayaa afhayeen u hadla waxa uu ku dhawaaqay Mareykanku inaanu jirin wax wada hadal ah oo lala geli doono ama dowladda Iiraan ay go'aansatay inay sameeyaan. waxna ay sheegeen in la gaaray waqtigii Mareykanka uu oortiisa ka raran lahaa gobolka bariga dhexe albaabadana loo laabi lahaa guud ahaanba saldhigyada halkaasi ku yaala. afhayeenka taliska dhexe ee Khatamul Anbiya ee ciidamada ilaalada kacaanka dowladda Iiraan General Ibrahim Dhulfaqari ayaa shaaca ka qaaday in aysan jirin wax heshiis ah oo lala geli doono Mareykanka ha ahaato hadda ama mustaqbalka dhow toona. hadalkan ayaa yimi kadib markii madaxweyne Trump uu sheegay in hadda la gaaray xilli wadahadalladu ay u soconayaan si heer sare ah isla markaana Mareykanka uu gaarayo guulo aad u weyn. ha u bixinina guuldarradiina ma jirto heshiis la idinla gaari doono. waqtigii ballanqaadyadiinu waa dhammaadeen. mowqifkeenna waa cad yahay weli isma bedelin. innagu heshiis idinlama geli doono idinama hadli doono mustaqbalka iyo hadda toona ayuu yidhi General Ibrahim Dhulfaqari oo ka soo muuqday war-saxaafadeedkii uu bixinaya maanta. Trump ayaa maalmo ka hor sheegay in la gaaray xilliga wada hadalka. hase ahaatee khubaradu waxay ku tilmaamayaan in Mareykanku markaan uu garwaaqsaday in dagaalka muddada bisha ku dhowaadka ka soconaya bariga dhexe ee uu ka lug yeeshay oo wejiga ka qarsado kana xeeladaysto. arrintan oo dhibaato weyn ku ah nidaamka Israa'iil iyo weliba qaybo ka mid ah wadamada Carabta. wargeysyada ka soo baxa bariga dhexe qaarkood ayaa toddobaadkan sii daayay in Maxamed bin Salmaan oo ah boqorka ama dhaxal sugaha waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya ahna ra'iisul wasaaraha waddankaasi in Trump uu ku cadaadiyo dagaalka inaanu joojin uusan ku degdegin heshiis la gaaray ilaa Iiraan la naafeeyo awoodeeda hubka iyo weliba gantaalaha ay ku garaacaysa qaybo ka mid ah bariga dhexe. khiyaartay nala socota ay tabinta qaybtan inta ayaan ku hakinayaa waa barrow idile nabadgelyo.